madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa lagu wadaa inuu maanta gaaro magaalada Garowe oo caawa ay ka dhacayso xafladda caleemasaarka madaxweynaha cusub ee Puntland Siciid Cabdullaahi Dani oo 8 bishan lagu doortay magaalada Garowe. wafdiga madaxweynaha uu hogaaminayo ayaa lagu wadaa inay maanta Muqdisho ka ambabaxaan waxaana Garowe gaaray wafuud hordhac u ah madaxweynaha Soomaaliya. sidoo kale Garowe waxaa ku sii xaadiray shalay mucaaradka dawladda kuwii ugu miisaanka cuslaa oo u arka ka qaybgalka xafladda caleemasaarka madaxweynaha Puntland inay tahay madal siyaasadeed ay isku soo bandhigi karaan marka loo eego sida weyn ee ay ahmiyadda u siiyeen ka qaybgalka xafladdaasi. xisbiga mucaaradka madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud 30 xubnood ayay u direen magaalada Garowe oo uu hogaaminayo Xasan Sheekh halka sidoo kale xisbiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur xubno badan iyagana Garowe ay ka joogaan oo xafladdaasi ka qaybgalaya. madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ayaa saakay ka duulay magaalada Nairobi ee dalka Kenya si uu isagana kaga qayb galo xafladda caleemasaarka madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani. Puntland waxaa hortaala xaalad adag oo kulmisay xafladda caleemasaarka maadaama ay isugu tageen siyaasiyiin dagaal siyaasadeed ka dhaxeeya oo xitaa qaarkood aanan isa salaamin sida ay ugu kala irdoobeen saaxada siyaasadda Soomaaliya. mas-uuliyiinta Puntland haddii aanay maareen khudbadaha siyaasiyiinta isku careysan ee Garowe isku arki doona waxaa halkaasi ka dhalan doonta jahwareer maadaama siyaasiyiinta qaar ay u arkaan meel ay ku nafisi karaan oo dawladdu ay ku weerari karaan oo khudbadaha halkaasi ay ka jeedinayaan. madaxda dawladda iyo madaxda dawlad goboleedyada oo aan xiriir wanaagsan ka dhaxayn dawladda Soomaaliya iyo mucaaradka oo loolan adag oo siyaasadeed ka dhaxeeya iyo maamul goboleedyada qaar oo dhexdhexaad ah ayaa madasha caleemasaarka madaxweynaha Puntland isku arki doona. goor sii horeysay oo shalay ahayd war ka soo baxay wasiirkii warfaafinta Puntland Master Qarjab ayaa waxaa lagu sheegay in saaxada ku xindaaban khudbadaha iyo ka qaybgalka xafladda caleemasaarka Puntland kaliya ay noqon doonto madasha caleemasaarka oo wax ka baxsan oo siyaasadeed aanan looga hadli karin taasi oo u muuqata in Puntland ay isku dayayso inay aad u xakamayso siyaasiyiinta kala duwan ee isugu tagaya magaalada Garowe khudbadaha ay jeedin doonaan si madasha xafladda caleemasaarka khudbadaha aanay uga bixin oo meelo ka baxsan lugta aysan ula gelin.